asalaamu calaykum daawade kusoo dhowo cashirkeenna xiga ee barashada windows tank waxaa ka hadli doonaa maanta sidee folder cusub loo abuuri karaa. Folder cusub sidee loo abuuri karaa? waxaa loo abuuri karaa inaad timaado right click kadibna aad dhahdo new kadibna aad doorato folder kadibna aad magac ula baxdo. tusaaloo kale axmed ayaan ula baxayaa folderkan. haddaba folderka aan abuuray oo kan ah markaa magaca u bixiyo waxaan leeyahay inter oo keyboardka kaaga muuqata. inter ayaan taaban doonaa. inter markii aan taabto ama meel banaan ayaa kalik iska dhihi doonaa. sidaas folderku waa igu abuuran yahay. folderkii aan abuuray oo kan ah wax ma soo dhexgelin karaa? haa, waxa meesha ay yaalaan keyboardku kale saan ayaa usoo jiidi doonaa. saan ayaa usoo jiidi doonaa. isla markaas folderkayga ayuu ii dhex imaaday. okay, folderka aad abuurtay sidaas ayaa wax usoo gelin kartaa. okay, waxaan rabaa tusaale folderka aan abuuray maba rababa in la dareemo inuu folder yahay. folder ii samaysan inuu yahay ma rababa in la dareemo. okay, intaan taas u gudbin folderkaaga magaca waa ka bedeli kartaa adoo imaanaya halkan rename. markaa rename dhahdo waxaa samayn doontaa magacaa rabtid ayaa u bedelan kartaa. tusaaloo kale baashi magaca waa ka bedela folderka. sidaas ayaa magac looga bedelaa. okay, waxaan rabaa folderkeena inaan bal aqoonsanin inuu folder yahay, yani secret inaan ka dhigaa rabaa. tusaale kanoo kale inaan kan u ekeysiiyo folderkaaga ayaa imaan doontaa. right click ayaa dhihi doontaa. marka right click aad dhahdo waxaa imaan doontaa halkaas hoose properties ku qoran tahay. isla markaa waxaa tagi doontaa customize markaad timaado waxaa imaan doontaa halkan ay ku qoran tahay change icon. waxaa ku bedeli doontaa wixii aa rabtay inaa ka dhigto. okay, halkan usoo soco. tusaale waxaa rabaa folderkayga in calaamada digniinta oo kale aan u ekeysiiyo. kilig dheh. okay dheh apply. okay, folderkayga wuxuu u ekaaday sidan. okay, magaca ma kasii bedeli karaa? tusaale magaci horaa ku qoran. yes, sidii hore oo kale magaca waa ka bedeli kartaa. waxaa ka dhigi kartaa ha taaban. okay, waa folderkii inoo samaysnaa. ismuu bedelin folder ahaan. wixii aan ku shubnoo kale waa ay galayaan, balse waxaan ka dhignay yani wax aan u ekeen folder. ahab ina aad u fahmayso. waxaa ka dhignay wax aan folder u ekaynba. okay, sidiisii hore ma ku soo celin karaa? ha, waxaa imaanaysaa properties kadibna customize sidoo kale change icon ayaa imaanaysaa. kadibna restore to defaults ayaa leedahay. kadib waxaa leedahay apply. kadibna okay, wuxuu noqday ha taabanin. magacana sidiisi waa ku soo celin kartaa adigoo rename dhahaya sidii hore oo kale kadibna ku qoraya baashi. okay, folderka aan samaysta waa kana. marka ma delete garayn karaa folderka? yes, folderka waa delete garayn kartaa. laba qab ayaa u delete garayn kartaa. marka hore right click ayaa dhihi kartaa kadibna delete. okay, sidaas waa u delete garayn kartaa folderka. sidoo kale waxaa u delete garayn kartaa in aad timaado keyboardka computerkaaga. keyboardka computerka markaad timaado waxaa imaan doontaa halkan ay ku qoran tahay delete. halka ay ku qoran tahay computerkaaga delete meesha ay uga qoran tahay ayaa imaan doontaa. waa kana delete ayaa imaan doontaa. kadibna sidaas ayuu ku deleetmi doonaa folderka. okay, folderka kilig dheh. right click aan ku tijaabino. delete waa uu baxay folderkeena. okay, inoo soo celi. waxaa loo soo celiyaa folder ama wax markaad deleedo anything aad deleedid right click aad dhihi doontaa undo delete, yani waa ka laaban kartaa wixii aad deleeday. okay, sidoo kale redo delete haddii aan dhaho mar kale delete ayay ka dhigan tahay. okay, I hope haddii in la fahmay. qaabka kale aad u deleedi karto waa inaad keyboardka ka taabato oo aad dhahdo delete. keyboardka ayaan ka deleedi karaa calaamadda delete anigoo taabanaya. okay, igu soo celi folderka ii door delete dheh. sidoo kale mar kale ayaa dhihi kartaa undo delete, noo soo celi. okay, sidoo kale renameka deleteka keliya xataa ma aha. rename markaa dhaho oo axmed oo kale ka dhig axmed. marka axmed aan ka dhigo undo rename waa dhihi karaa, yani renameka ka laabo. ma fahmay? baashi ku celi. redo rename yani ku celi axmed. ma fahmay? يعني si fudud waaye
I hope marka hadda in la fahmay sida folder loo create gareeyo, sida folderkaaga wax loogu shubo, sida folderkaaga loo bedelo qaab dhismeedkiisa ama qaabka uu eg yahay. Okay, folderkii aan sameeyey marka ma ka dhex samayn karaa folder kale? Yes, waxaa samayn karaa right click inta dhaho dhexdiis inta imaado inaan dhaho new kadib folder sidii hore kale waxaa leedahay rename asna magaca ka bedelaysaa folder 2. Okay, sidii si lamid ah asna waa bedeli kartaa sawirkiisa, yacni folder kale waa kasii dhex samayn kartaa, magaciisa sii bedeli kartaa, qaab dhismeedkiisa qaabka u eka ayaa bedeli kartaa. janja icon dheh sida kanoo kale nooga dhig. Okay, waa kaas waa uu isbedelay folderkii, yacni lama dareemayo waxaan inuu folder yahay iyo in kale. I hope hadda in aad loo fahmay sida folder loo create gareeyo, sida folderkaaga wax looga bedelo, sida folderkaaga folder looga dhex sameeyo, iyo sida folderkaaga markaa iska delete gareyso si fudud aad ugu soo ceshan karto. waxaan rajeynaya in aad loo fahmay. casharka xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.